بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا عشر كيني سيدا وناكسن أبرن لهايد ونفهم لهايد عشر جامعاتها إن السعودية وحان سوق قادني أو كسو قدوبني دور قيبود أو مهم وها وحبرشدا أو كمد أهايين فهميد أن سو فهمني 5 learning style iyo right brain iyo left brain sidoo kale waxaan soo baranay waxa loo yaqaan growth mindset iyo fixed mindset kuwaasoo muhiim u ah qofka hab fikirkiisa iyo inuu fahmo awoodaha maskaxdiisu leedahay si uu uga faa'iideysto intaan taas ka bixin waxaan rabaa inaan ku celiyo qofku markuu fahmo kartidiisa awoodihiisa fahamkiisa iyo sida ugu sahlan ee wax ku baran karo wuxuu hore ugu tallaabsanayaa guushiisa nolosha si kasta iyo meel kasta uu joogana wuxuu fahmayaa sida ugu wanaagsan ee uga faa'iideysan lahaa awoodaha Ilaahay siiyay iyo lixaadka Ilaahay ugu deeqay qofka haduusan Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga qadaree uusan aragti siinin ama uusan maqal siinin waa culays weyn oo bini'aadanka Ilaahay ugu talagalay waxaa jirtay marka waa cibro qaadasho inta kalena ay u baahan yihiin in ay fahmaan awoodaha iyo deeqaha iyo naxariista ee bisiiyay inay uga faa'iideystaan inay wax ku fahmaan inay wax ku bartaan inay ku ibaadeystaan laakiin aysan u leexin dhinaca kale ee lugooyada iyo dambiga iyo aakhirowaaga inaysan indhahaaga iyo dhagahaagu iyo lixaadkaaga kalaba aysan sabab u noqon xorriyadda qofku xoroobo waxa ugu muhiimsan in uu fahmo awoodihiisa iyo in uu u madax bannaan yahay hab fikirkiisa iyo aragtiyooyinkiisa iyo waxyaabaha uu rabo inuu mustaqbalka xaqiijiyo waxaadna ogaataa qofka inta uu maskaxdiisa ku shaqaynayso hab fikirkiisa xor u yahay awoodda Ilaahay siiyay inuu ka faa'iideysto diyaar u yahay wuxuu noqdaa qof productive ah qof wax soo saar leh waqtigiisa ka faa'iideeya fahma meesha uu tahay inuu xoogga saaro si wax u barto fahmo maskaxdiisa Ilaahay sidoo u sameeyay haduu curiye yahay artis yahay dadka maxaan ku iraahdaa abuurka yahay inuu hal abuur noqdo haduu dadka oo floweriska yahay oo hal abuurka lahayn laakiin waxyaabaha dadku keenaan ku fiican in uu si fiican u daraasayna daraasiisi sidoo kale waxaan ka fogaanaysaa waxa loo yaqaan fixed mindset adduunka xumaan inaad u aragto in wax la baran karin in ay maskaxdaada gasho dadka aad aragtay oo horumarka gaaray dad غيرul caadi ah inaad u aragto awoodaha iyo kartiyaha wax Ilaahay keenay oo maxaan ku iraahdaa aan la kasban karin inaad u aragto in aad awoodahaaga xanibto xarga aad adag inaad isku xirto xarga midka la isugu xiro waxa ugu daran midka lagu xiro maskaxda ee ka dhiga qof naafaka ah maskaxda oo wax fahmayn oo dadka ka hara oo wax akhriin oo wax baran oo asaagiis inuu ka liito ama uusan kari karin waxay kareen isu arka taasoo ah waxa ugu weyn ee qof bini'aadan ku dhaca xorriyadda qoom ama dawlad ama nation ay leeyihiin waxa ugu muhiimsan xorriyadda in ay iyagu hab fikirkooda iyo maskaxahooda u madax bannaan yihiin mar haddii adi hab fikirkaaga ku xiran yahay luqad qof kale hadduu hab fikirkaaga ku xiran yahay dhacdooyin kale oo dunida ka dhacaya haddii hab fikirkaaga ku xiran yahay ku dayasho aad ku dayanayso qof kale ama ummad kale ama qaarad kale
maalintaasaa maskaxdaadii guurtay oo aad gumaysi maskaxeed ku jirtaa. Marka intaas waxaan rabaa inaan ku xoojiyo casharadii aan soo baranay ee barashada 5 nooc iyo barashada maskaxda si ay u samaysan tahay qaybta midig iyo qaybta bidix iyo qodobkii u dambeeyay oo ahaa sidaad u noqon lahayd qof maskaxdiisu korayso ee aadan u noqonin qof maskaxdiisu fadhido. waad ogtahay jirkii maskaxdu waa wada koraan. dad waxaa jira maskaxda aan ka korin laakiin jir ahaan kora. dadkaas waa taqaaniin waa dadka caqli dhimanka la dhaho oo xogaa berberka Soomaalida u taqaano. boodigooduna waa weyn yahay laakiin waa sisiib waa fufudiya waa doqon macnaha maskaxda iyo jirkii ayaan israacinin. haddii Ilaahay suka raacshay oo adiga caqli tahay wax fahmaysid oo waxa ay isku ka socdaan ka wada faa'iideyso. maskaxda kori garuutmaasay noqo waxna baro.